إنا لله وإنا إليه راجعون. بروفيسور محمد عبد محمد أو كما قال بروفيسور غاندي إلهي هون حريصه إلهي جنة الفردوس حقي دنبقي صادافو وكبيريو دنا سمريو إيمان الله كس هي الصومالي يودن هذا أنت كقول تعصيده وحكى الشيء يا محمد عبد غاندي ودكتور دنا ويغانين وحوها من أن مدرسة مدبرنا عن صاحبها إلى أرضي دكس السرع وأن وذل جنبا صاحب لماذا يذكر بالعربي مدري جامعتها أنه بجنينه وأن كل ذلك الدول واستجون الجيولوجي هيستوري وهو نقضي محافظة أنثروبولوجي أنا وأنا إنجنيرين بانها تبدأ وحضر الشيء يدي من ولدي إلى تخصصي دكتوراه وحاس رئيسي تاغو سميي مر والبوا ولا سؤال صاحب لماذا يدي وحنا مركب بأن هذا صاحب كل قلنا صور السياسة الدولة شيخ شريف وجبوتي لو صور عمر عبد الرشيد رئيس الوزراء فها البرلمان كالكا لو دستيبان لباديد waxna ka noqonay hukuumadii halka lagu dhistana labadii hukuumadana soo galay wasiirka ka noqonay wasiirka gaashaandhigu noqday aniguna wasiirka qorsheynta ka noqday wax mar muddo wax laga joogay wasaaradda waa laga bedelay wasaarad kale oo baaloo dhiibay oo gaadiidka iyo dhulka labada xilmi uu soo qabtay muddana waxaanu wada ahayn barlamaankii baanu wada ahayn laba teeran laba waqti wax intaas وانتي ان كاغان مارس وصوت في تاريخي سداس وها بروفيسور غاندي الله نحرسته لبا غور بو غورسدي حاسكي هوره حلويل بي ودشي waxaan ku yiraahdaa waa kala sigeen gabadhaas wuxuu markii dambe soo guursaday France wuxuu ku guursaday gabar Faransiisa iyaduna caruur bay u dhashay laba wiil iyo waxay u dhashay gabar dad waaweyn weeye saddexdaas France baan ku ogaa iyo hooyadoodba markan taariikhdiisa ka soo tagno bal shakhsiyadiisana nooga waran marxuumka qof noocee ah ayuu ahaa qof aan anigu aad uga naxay oo aan jeclaabo ahaa waxaana kuu sheegayaa qof saaxiiba si sahla ku samaysan kara qof dun ahaan shakhsiyad fiican leh oo raxmad leh oo dadaal badan oo Soomaali aad u jecel inay wax qabsato inay wax barato inay horumar samayso ma garanaysa aad ugu dadaalo buu ahaa nin cid walba oo mar uu la kulmo saaxiib ka samaysan kara buu ahaa oo aan eed iyo qadaf iyo xumaan aanay marnaba ka gaarin qofka bini'aadanka oo kale qadariya dadka buu ahaa xuquuqda aad ugu dadaalo buu ahaa nin aad u fiican baa ka baxay Soomaali iyo reerkiisa Allahu naxariis dabcan siyaasadda waad iskula soo jirteen saaxiibana waad ahaydeen bal door intee la eg ayuu ka qaatay siyaasadda Soomaaliya siyaasadda Soomaaliya wuxuu ka qaatay door aad kan wuxuu ahaa nin ku bartay France wax ku bartay siyaasadda intii aanu ku jirnay siyaasadda Soomaaliya dawladii xukuumadii buu ka soo shaqeeyay oo wuxuu uga soo shaqeeyay inuu hogaamiyo wasaaradda gaashaandhig oo markii ugu horeysay runtii ciidan in la abaabulo gaashaandhigii wasaaradda in dib loo dhiso si xoog ah buu uga shaqeeyay wuxuu ka shaqeeyay oo kale dabcan wasaaradii kale wixii kaga habboonaa oo qaybtaas looga baahnaa oo hay'ad ahaan in loo dhiso waxay dawladda waxtarkeeda weeye wuxuu kaloo ka shaqeeyay door weyn ka qaatay sharci dejinta intaba Soomaali dhinac kasta oo ay kaga soo aadan wax ka geystay buu ahaa oo dawladnimada Soomaaliyeed tiirarkii dawladnimadana inuu hadda dib u dhisayno tiirarkii ugu muhiimsanaa oo wax ka qaatay buu ahaa marka sanadihii ugu dambeeyay muxuu qaban jiray dabcan sanadihii ugu dambeeyay wuxuu qaban jiray siyaasadii mar walba waa ku jiray oo hadee hirgelinta maxaan ku iraahdaa dib u dhiska Soomaaliya wuxuu ka qayb qaatay hirgelinta barnaamijkii federaaleynta dalka dhismaha Jubbaland si xoog ah buu uga shaqeeyay oo uga qayb qaatay Puntland aan hadda kala hadlayo aan joogo dadka wuxuu ahaa ma garanaysa oo ololeeya in nidaamkaas la hirgeliyo hay'adaha iskaashiga lala leeyahana runtii la hadlo waxyaabaha ku habboon oo iskaashiga iyo hay'adaha dhismaya sidii isu fahmi lahaayeen inuu tala guud ka bixiyo buu xoog uga shaqeyn jiray kaasi waxa uu ahaa Senator Cabdirasaaq Cismaan Xasan Jurile oo ay saaxiibo ahaayeen Professor Gandhi oo ku geeriyooday